Soomaalida ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhanka sharciyada. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha wadankan ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin dhanka sharciyada iyadoo aad loo adkeeyay xareynta aydiyada iyo baasaboorada qaxootiga ee wadankan. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika ayaa inoo sheegay in marka ay doonayaan inay xareeyaan aydiyada iyo baasaboorada qaxootiga wadankan lagu xiro shuruudo ay ka mid yihiin halka ay u isticmaalayaan baasaboorada ayadoo ay saameyn ku yeelatay dhalinyarada Soomaaliyeed ay doonayeen in dalkooda dib ugu laabtaan. baasaboorada ayaan dhibaato weyn ku qabnaa. awal markii hore Soomaalidu waxay aad iska qaxooti ayagoo qaxooti waxay sameynayeen yani maartay baasaboorada wax shuruud la'aan ay ku qaadan jireen. shuruud oo lagu xiri jiray ma jira. haddana shuruudooyin adag oo wadanka u socotid ka keen adres iyo waxaan macquul ahayn ayaa ummadda lagu dhibaatooyaa. waxaan leenahay qolada home fariska yani baasaboorka xareentiisa waag hore iska fuusaa jiray isku ahaa jiray. hadda yani marka dambe waxay noqotay intii macnaha waxay afar boqol macnaha waayo laga qaado qofka oo macnaha waayo wadanka ah macnaha Soomaalida. baasaboorka haddana intii afar boqol lagu xareeyay waxay muddo u sugayay oo macnaha wax waayo hada waxay istawa haayeen. markuu baasaboorkii loo soo dhijiyay hadan in la yiraahdo macnaha wax waayo ayay macnaha wax waayo adiga Djibouti ya ka taqaana macnaha wax waayo qafkina macnaha wax waayo Djibouti waxana waxa laga yaabaa inuu macnaha wadiga soo maran oo wadada soo mar oo qaf ehel qaraabana ka yaqiinan. ma aan kaliya dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed danka sharciyada ayagoo mararka qaar ay la kulmaan dil iyo boob hantiyadeed. Abdirxmaan Abdullaahi Amaan Cadde telefishinka caalamiga ee Royal TV Koonfur Afrika.